kulanti wanaagsan daawadayaal waa markale iyo barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa ugu waaweyn daawasha qiimaha leh dalkii Afrika ee ugu horeeyay oo qareeno ka socda ay ku dhawaaqeen in ay maxkamadeynayaan dalka Shiinaha Soomaaliya oo cabsidii ugu weyneed ka taagan tahay iyo hay'adaha qaramada midoobay oo ka dayrinaya in xanuunka faafaha daran ee COVID-19 uu si daran ugu faafi doono dalka iyagoo gabaabsi ku yahay agabka iyo qalabka laga hortagi karo Kim Jong Un oo ilaa hadda la leeyahay meel uu jaani ciliw dhigay geeriyo nolol la warkiisa sugan aan lahayn iyo wararkii ugu dambeeyay ku saabsan daawasha qiimaha leh qodobada kale daawadayaal ku maqli doontaan wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan waxaa kamid ah kooxda gooni-goosadka ku dhawaaqday ee dalka Yemen sheegtay inay kala goysay oo soo saartay oo amiir isla markaana sheegtay in ay dal gooniye yihiin Israa'iil iyo ciidankeeda Yuhuuddu waxay diyaar u yihiin inay ku siqaasta markaan ay qabsadaan daanta galbeed oo gaagi ka haray dhulka reer Falastiin ay ku darsadaan sida ay sheegayaan kuna hanjabayaan waa qodobadaas iyo kuwa kale waa 29 Abriil waa 2020 waa markale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan aan ku bilaabay markaan ugu horeysay magaalada Qardho oo ay daadad xooggan ay waxyeello baahsan u geysteen kadib markii ay roobab dhaliyay daadad ay dad gaaraya ilaa 7 ruux ay ku dileen ayaa la sheegay in haatan biyaha ka yaraanaya wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in halkaasi gurmad ay ka wadaan maamulka Puntland oo goorsii horeysay uu gaaray madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo xubno ka tirsan guddiga heer markaasi degmo ee loo sameeyay in xaaladda wax ka qabtaan guddiga ayaa war qoraal ay soo saareen iyaguna waxay uga digeen dadka isla markaan ugu baaqeen in aysan cidna samaysan akoontooyin iyo xisaabaad lacag loogu ururinayo oo ka baxsan ka guddigu ay sameyn doonaan guddigu waxa ay sheegeen in isku dubaridka dhinaca gargaarka loo fidinayo dadka ku barakacay biyaha iyo weliba daadadka magaalada soo galay ay u baahan yihiin kuwa loo mudan tahay in la soo maro ay yiraahdeen guddiga dhanka kalena waxaa la sheegay in dadkii ku barakacay magaalada isla markaana ay daadadku barakaciyeen guryahoodana ay ka saareen la dejiyay meelaha ay ka mid tahay dugsiyada waxbarashada iskuulada dhexe iyo kuwa sare ee magaalada Qardho ku yaala waxaana sidoo ay sheegayaan deegaanadaas dadka ka soo waramaya bilowday baalidi gurmad hordhaca oo dadka deegaanadaas ku dhaqan ay bilaabeen goorsii horeysana waxaa shacabka Soomaaliyeed oo dhan loogu baaqayay inay ka qayb qaataan arintaas Horfar Media mar walba waxay aaminsan tahay in shacabka Soomaaliyeed ay tahay cid ugu horeysa iyaga la sugu baaqo in ay iscaawiyaan aysan hayn hay'adaha caalamiga iyo dawladaha shisheeye iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ku filan inay caawiyaan hal degmo iyo hal magaalo goorsii horeysana oo sanadkii hore ahaydna Soomaalidu si xooggan ay uga qayb qaateen gargaarkii loo fidiyay dhibaatadii ka dhacday magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan kadib markii webiga uu halkaas ku fatahay sida markaasi aad ogeydeen daawadayaasha qiimaha leh halka dagala socotaan wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan gaankeegan dunida oo dhan daawadayaasha qiimaha leh intayna ka bixin wararka Soomaaliyana dawladda Soomaaliya waxaad ogtihiin in ay laga dhacaso isla markaana ay marba la legdamayso ka hortagga xanuunka faafaya iyo wax ka qabashadiisa balse waxaa jira in ay u muuqato arintu inay ka baaxad weyn tahay Soomaalida ama dawladda Soomaaliya arinta ayaa laba siyabood loo sababeynaya marka koobaad waxa weeye qalabka la haysto iyo agabka ay tahay in lagu la tacaalo dadka xanuunka u soo ridanayo iyo haddii ay tahay wixii lagu baari lahaa marka horeba lagu ogaa lahaa xanuunka dadka qaba ayaa la sheegay inuu gabaabsi yahay dhakhtarka horkacaya arinta wax ka qabashada xanuunka Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ah markaasi hogaamiyaha markaasi maamulka haya la tacaalista xanuunkan ka hortagga COVID-19 oo u warmay TV Al Jazeera ayaa waxa uu sheegay in ay san sameey karin baaritaan wuxuu yiri waxaan aaminsanahay kumanaan kun oo qof oo xanuunka la ildaran inay naga maqan yihiin oo aanan wali baarin waxaanu kaliya baarna ayuu yiri Dr. Axmed dadka markaasi nabarrada waaweyn ay ka muuqdaan ama ay ka muuqda calaamadaha waaweyn ayuu yiri isagoo sheegay in qalabka ay haystaan ee baaritaanadu gabaabsi ku yihiin sidoo kalena xarumaha shaybaarada ee dalka oo dhan ay yihiin 3 wuxuu yiri dalka oo dhan waxaan haysanaa oo kaliya 3 shaybaar oo wax lagu baari karo mid wuxuu ku yaalaa Muqdisho midna labada kale waxay ku kala yaalaan Puntland iyo Somaliland ayuu yiri isagoo warmay TV Al Jazeera ayuu sheegay in sidoo kale aysan haysanin qalabkii loo fududeynayay ee dadka si baaxad loogu baari lahaa kaasoo uu sheegay in aysan haba yaraatay oo leen dalka Soomaaliya dhanka kalena hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan isku dubaridka deeqaha xafiiskeeda la yiraahdo the United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs oo loo soo gaabiyo madaxda Good Justin Brady ayaa waxa uu sheegay in dadka la baarayo tiradooda iyo qalabka lagu baarayo iyo shaybaarada intuba ay gabaabsi ku yihiin oo yihiin kuwa tirsan wuxuu yiri tirada baaritaanada iyo tirada shaybaarada intuba waxa ay yihiin kuwa aad iyo aad u yar ayuu yiri Justin Brady oo markaasi ka hadlayay arintaasi waxa uu sheegay in ay dhibaatada ugu weyn ay tahay ayuu yiri in dalka Soomaaliya oo ku tiirsanaa
oo dalka Soomaaliya oo dhan marka ay noqoto laamihiisa dhinaca caafimaadka iyo kaabayaasha dhinaca caafimaadka ay ku tiirsanaayeen dibadda ama hay'adaha deeq-bixiyaasha taasoo gabi ahaanba meesha ka saartay ayuu yiri wixii ay dawladdu u qaban lahayd dalka maadaama dalku uu burburay waxa uu ugu baaqay hay'adaha in ay u dhifoonaadaan in Soomaaliya xudun noqon karto ayuu yiri xarun markaasi noqota goob uu xanuunku aad ugu faafo Hodan Cali oo iyaduna kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa isla markaana ka tirsan xarunta la yiraahdo xarunta maamulka gobolka Banaadir ee arrimaha dhinaca humanitarianka isku xidhka arrimaha humanitarianka iyaduna waxay sheegtay in aysan jirin ayay tiri wax buuxa ama qalab buuxa oo arrintaas kaga hortagi karaan ayadoo sheegtay in ay diyaar u yihiin in ayagu wixii karaankooda ay qabtaan gaar ahaan ayagoo kaashanaya ayay tiri laamaha iyo hay'adaha caalamiga dalka Soomaaliya ayaa laga digay in dhawaato inuu noqdo xanuunka dad badan ayaa waxay sheegayaan in xanuunka iyo calaamadihiisa iyagoo la liito aysan haysanin goobo caafimaad ay tagaan qaar kale ayaa la sheegay in ay iska dhex marayaan magaalooyinka iyagoo xanuunka calaamadihiisa haysta sidoo kalena Dr. Maxamed Maxamuud Fuche ayaa waxa uu ku tilmaamay in arinta ay jirto wuxuu ku sifeeyay diyaar garow la'aan gabi ahaanba waxaan haysta ayuu yiri manhin buu dad u diyaarsan xanuunkan faafaha safmarka ah ee daran ayuu yiri waxaan nahnay ayuu yiri ku hadirta bilow ah ama bilow ayaanu taaganahay wuxuuna sheegay in ay taasi kasabtay in dad badan ay xanuunka ay soo ritaan dadka Soomaaliyeed ayaa wali loogu baaqaya in ay ilaaliyaan kala fogaanshaha kala durkida iyo inay nadaafada kor u qaadaan xanuunka ayaa waxa uu wadnaha farta kaga hayaan ummadda Soomaaliyeed in uu noqon karto xarunta ugu weyn ee dalka Soomaaliya hoggaanka u dhufatay dhibashada dalalka Geeska Afrika ku dhawaad 1,000 qof ayaa hadeerta la sheegaya in xanuunku uu hayo inta dawladdu ay cadeysay laakiin waxa la sheegaya in 3 jibaar arintaas laga yaabo inaan laga warhayn halka nagala socdaan daawada wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodob kale oo dalka Mareykanka la xiriira ayaa iyadoo madaxda maamulka madaxweyne Trump iyo ku-xigeenkiisa golihiisa wasiirada alaaba waxaa lagu eedeeyaa in ay dafirayaan jiritaanka xanuunka isla markaana mar walba ay door bidayaan dadku inay shaqeystaan oo xagga dhaqaalaha ay u janjeeraan sidaa daraadeed waxa cambaareen xooggan iyo hadalhayn xooggan ka dhalatay madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence oo booqday isbitaal ama xarunta isbitaalka Mayo Clinic la yiraahdo ku taal gobolka Minnesota dalka Mareykanka isagoo aan afku jeebnayn laakiin dhammaan dadkii la socdo dhan afka ayaa u duubnaa oo afka ayaa u jeebnaa halka dadkii uu meesha ugu tagayna ayagana ay afka u jeebnaayeen taasi waxa ay noqotay markaasi arin soo jiidatay indhaha dadka Mareykanka iyo gaar ahaan warbaahinta oo iyagu in badan ba ku eedeeya madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa inay iska dhaga marayaan jiritaanka khatarta xanuunkan Mr. Pence ayaa la arkayay isaga oo markaasi indhaanaya Mayo Clinic sida ay markaasi laga soo xigtay warbaahinta dalka Mareykanka oo muuqaal ka doobtay balse waxa la sheegay in xarunta Mayo Clinic la yiraahdo oo ah mid kamid ah shaybaarada ugu casrisan caalamka iyo gaar ahaan dalka Mareykanka ay u sheegeen ka hor intuusan imanin Mr. Pence ama soo boqon goobta in shuruucda u taala xarunta Mayo Clinic ay kamid tahay in qof kasta oo imaanaya xarunta ama soo galaya uu afka soo jeebto isla markaana uu isdifaacay ama uu markaasi isbadbaadiyay oo afku u jeeban yahay sida ay uu sheegay afayaan u hadlay inkastoo war qoraal ah oo ay tafaasiil dheeraad kaga bixiyeen arrintaas barta Twitter-ka Mayo Clinic ay ku qortay markii dambe laga saaray madaxweyne ku-xigeenka Mr. Pence ayaa si istaafacay wuxuuna yiri anoo ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka waxaan ahay ayuu yiri mid mar walba istijaabiya oo xanuunka waa laga baaraa coronavirus-ka ayuu yiri si joogto ah ayaa laga baaraa qof kasta oo aniga ila socdana waa qof la baaray dadka igu hareereysan oo dhan ayaa baaran markii ay hay'adda caafimaadka ee dalka Mareykanka CDC ay soo saartay arrimaha raacitaanka qawaaniinta iyo xidhashada maskiska waxa ay kaliya ahayd ama ay ula jeedeen baalidi dadka xanuunka sooga shakisan ama tagaya meel looga shakisan inuu xanuunku ka jiro inay afka duubtaan laakiin dadka oo dhan maaha ayuu yiri sidaa daraadeed anigu ma haysto ayuu yiri xanuunka coronavirus mana jirto ayuu yiri fursad aan bixinayo oo xanuunka dadka u qaadsiinayo laakiin waxaan rabay buu yiri inaan arinta soo indheeyo oo aan arko shaqada weyn ee halyeennimada ah ee hayaan Mayo Clinic iyo waxtarka weyn iyo cilmi baarista baahsan ee halkaas ka socota ee xaruntan caafimaad ay hayso laakiin taalafteeda ayaa waxa ka sii daba qaadatay website-ka arrimaha caafimaadka aad uga hadla ee Access la yiraahdo kaasoo sheegay in Mr. Pence weligiiba xataa haduu tagayo goob xanuunka looga shakisan yahay uusan weligiiba xiran iyadoo la yiri maba taalo xafiiskiisa wax afka lagu duubto ama af jeebasho ma yaalo ayaa la yiri si kastaba noqotee wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda daawadasha qiimaha leh fari kama qodna qodobo waaweyn baa idin haya ee waaxda Pentagon-ka dalka Mareykanka ayaa muddo 6 sanadood kadib waxay ogolaatay in ay sii dayso muuqaal horey looga dhacay oo looga xaday oo ku saabsan waxyaalaha loo yaqaan UFO ama waxyaalaha hawada meera ee dad badan ay marka qaar kood aaminsan yihiin inaysan waxba ka jirin baa la yiri oo ah
dabcan dayax gacmeed soo dhacay ama waxyaalo markaasi ayagu hawada u direen si kastaba ha noqotee waxa ay sheegeen muuqaalkan oo markii horeysay la xigtay 2007 sanadood ka hor ku dhawaad 14 sanadood ka hor laakiin muuqaalka labaad hadda ay sii daayeen ya 2017 waxaa soo dhacay ama soo markaasi qishtay New York Times haatan waxay ku soo beegeen iyada oo buuq ka dhashay mid kamid ah dayax gacmeedadooda oo la sheegay inuu ku soo hoobtay magaalada Istanbul duleedkeeda ee dalkaasi Turkiga waxaana muuqaalkan ay sheegeen in ay uga jeedeen in ay muujiyaan in waxyaalaha cirka laga arko marmarka qaarkood ama marar badan yihiin wax jira oo ku saabsan in ay soo degayaan oo si nabadgelyo u soo socdaan ama u soo noqonayaan dayax gacmeedyo la diray kuwaas oo internetka la xiriira ama meel kale la xiriira iyo kuwa kale si kastaba ha noqotee arintan ayaa waxa ay ku sabeegmaysaa iyadoo goor sii horeysay uu jiray hadalhayn ku saabsan in uu jiro meelo kamid ah mareyaasha u eg ama u samaysan sida dhagax oo kale oo laga yaabo in uu adduunka ku soo dhawaado kaasoo dhowr milyan oo kilomitir u soo jirsan doona maanta ayay sheegeen iyadoo ilaa hadeertana warar dheeraad arintaasi aysan cidna ka soo saarin daawadayaasha qiimaha leh qodobada wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda qodobka ugu dambeeyana madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayaa waxa uu ka cawday wax uu ku sifeeyay u diyaar garow la'aanta iyo wuxuu yiri yaraanta qalabka PPE-ga loo yaqaano ee la iskaga difaaco xanuunka marka xanuunada ee lagu talagalay inay gashadaan dadka la falgalaya caafimaadka taasoo dalkiisa ku yaraatay kadib markii dadka iyo dalka Russia ay la soo hoobteen xanuunka si xooggan ayay dadku tarab u noqonayaan sida ay sheegayso warbaahinta dalkaasi iyadoo Mr Putin iyo dawladdiisa lagu eedeeyay in aysan haba yaraatay wax diyaar garow aysan sameynin bilii u dameeyay oo ay jirjirka u jiifeen sida dadka mucaaradka ay baraha bulshada adeegsada ee dalkaasi Russia ay qorayaan haatan 93,000 oo ruux ayuu marayaa soo riditaanka ama soo dhicitaanka dadka xanuunka u soo daadanaya iyadoo la sheegay in 867 ay dhimasho tahay Putin haatan wuxuu yiri waan qirsanahay in daldaloolo ay ka jiraan buu dhinaca qalabka PPE-ga oo yiri waxa ay ahayd in la fuur yeelo ama la buux yeelo ayuu isbitaalada oo dhan si ay dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadku ay isku daafacaan ayaguna si ay u caawiyaan dadka waayo haddii uusan qofku isagu badbaadsanayn cid ma badbaadi karo ama uusan qabin kalsooni ah inuu isagu horta uu badqabo ama uu difaacsan yahay madaxweynaha ayaa wuxuu ku baaqay dadka Russia ee yaqaan qalabkaasi in ay xoojiyaan ayuu yiri soo saarista qalabkaasi goor sii horeysana Mareykanka ayay u direen qalab lixaad leh taasoo dad badan oo Russia ay haatan ka sii cadhooday qaybta labaad ee wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda